السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii kasoo qaybgalka aan ka soo qaybgalay laba siyaabood baan uga soo qaybgalay mid oo ah Soomaalinimo iswiisna ku noolahay taas waa mid iyo mid labaad oo ah si gooni ah lagu martiqaaday anigoo ku hadlayo magaca Koonfur Galbeed ama dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. dhammaantiin waa idin salaamayaa inta ka soo qayb gashay hore loo sheegay ay ka mid yihiin fanaaniinta iyo martida sharafta leh ee meelaha fogfog iyo meelaha dhow inta ka timid waa salaamayaa salaan kadib runtii caawa waxaa loo joogaa oo lagu martiqaaday farxadna ii ah inaan kala soo qayb galo farxadda loogu hambaliyeynayo maamul goboleedka Galmudug. runtii markii la yiraahdo Galmudug dad u dhashay iyo dad degay iyo dad maqlay intaba way jiraan laakiin dad ka sheekayn karo Galmudug waxa ay tahay ma jiraan. anoo ku dhashay Koonfur Galbeed ayaa haddana waxaan haystaa Aufenthaltsbewilligung B maadaama aniga aan ka shaqeeyay 5 sanadood gobolka Galmudug. macnaheedu waxay tahay 5 sanadood meel aad joogtay cayaar ma ahan idinka kamid ah Swiiska markaad joogtaan 5 sano integration ayaad sameysaan waxna waad ka barataan waana ka sheekeyn kartaan. haddaba Galmudug hadda magac hadda la maqlay Galmudug laakiin maxay caan ku tahay? Galmudug runtii waa wadan qani ah oo khayraad badan oo hanti fara badan leh oo macaadinta adduunka loogu jecel yahay ay ku jirto sida uraniumka. Galmudug ilaahay wuxuu ku hireeyay bad aad iyo aad u dheer ayuu ilaahay ku hageeyay oo badan Indian Ocean ka yiraahdo ay si kasta uga faa'iideysan karto. labo tan saddexaad waxaad maqashaan inta badan petrol ayaa la baaraa Soomaaliya laga baara ayaad maqashay. haddaba yaa farti taagi karo gobolka ama dawlad goboleedka Galmudug meel ka mid ah waqtigii dawladii Soomaaliya ay ka dhisneed meel ka mid ah tuulo ka mid ah in petrol laga baari jiray yaa yaqaano farti taagi karo. haddaba taas oo jeeda waxay tahay maadaama 5 sano aan joogay waqtigii siyaad bare waxyaabaha ayada hodanka ay ku tahay waxa kamid ah petrolka oo laga baarayay afgooye waa runta degmo la yiraahdo Eeldheer tuulo u dhow oo la yiraahdo Mareeg ayaa petrolka laga baarayay. marka haddaba ku dheeraan maayo meesha waxaa lagu yeeri kaliya inaan kala qayb galo farxadda hambaliyada Galmudug State. haddaba haddii ay isku duubmaan dadkeedii wadanka ama dawlad goboleedka Galmudug wax weyn baa loo qaban karaa. mar kale waxaan u hambaliyeynayaa doorashadii xurta ahayd ay ku doorteen baarlamaankooda iyo madaxweynahoodana waan u hambaliyeynayaa. tan kale waxaad ogaataan waxaan idin leeyahay isa seegi mayne Soomaalinimadii wali waa sideeda.